aniga shaqadan markaan bilaaway waan ogay macnaha yaani dad badan ina macnaha ay weydiin doonaan ay macnaha ay weydiin doonaan maxaa shaqadan ku galifay maxaa shaqadan u bilawday nin Soomaali shaqadan kama shaqeysay laakiin waxa aniga ku uma dhin nin walba dantiis uu ka fikiraya ninka ragna waa ninka shaqeysta shaqo ceeb mala magacaygu waa Bashiir Cali Aadan waxaan deganahay magaalada Nairobi xaafadda Islii waxaan ahay baalashala waxaan bilaabay shaqadan 2018 aan bilaabay magaaladan aan ku bilaabay meeshan Masjidul Hidayah alxamdulillah maanta waxa way waa shaqadeydii waxaan ka bishaa ilmahayga baan ka bishaa wallahi runtii waxay u kalifay wadankan Kenya aan ku noolnahay dadka badan waxay u badan yihiin shaqalaan ay u badan yihiin markaysa anigana dantay u kalifay shaqaan waaye nin school soo dhameeyay baan ahay high school aan soo dhameeyay dika baan high school ka soo dhameeyay alxamdulillah ma shahaadaan wata meel walba marka u tagtid waxa way waa shaqo adaad weysay dadka hada shaqada weydiisatay waxay ku leeyihiin shaqo mala shaqadan waa ogtahay waa la isku seenayaa macna qabiil la isku seenayaa markaysa alxamdulillah waxaan arkay aniga fursad inaan haystay waxaan sadeynay kale bal maadaama adduunkan laazim inaad qof u shaqeysad maaha adiga hantaadi macna yaani xoogaaga isticmaali kartaa macna yaani maskaxdeedii ay tusay macna yaani inaan maanta aan baalasho noqdo wallahi waa inta soo goorwan raasaday saaxiibkay waan raasaday laakiin waxa way waa meeshan roota qabiil iyo aqoon la isku siiyaa macna yaani aqoonsi macna qof lagu aqaana ama qof hebel ama sansaan ama macna yaani waa corruption aska jira Soomaaliya wadankan corruption aska jira marka waan raadiyay laakiin waa way cid baan ku biisha alxamdulillah ilmo baa jooga shaqadan aan ka guursaday maanta kuma qasaarin maanta macnaha shaqadan aan bilaaw macnaha yaani kuma qasaarin alxamdulillah maanta waan shaqeysanahay ilmaan ku biilaha horta dadka isku mid maaha alxamdulillah maanta shaqadan sidaan u bilaaway baan ogaaday dadka inay isku mid ahayn waayo dad qaar waxa jirta markay ku imaadaan ay ku arkaan wiil Soomaali inaatay oo shaqeysanaysa intay ku imaadaan bay ku dhiirigelinayaan shaqada ay ku dhiirigelinayaan qaar intay ku imaadaan bay foodo iyo waxyaalo ay ku imaanaan waxay ku leeyihiin maxaa ku qasbay in shaqadan bilaawdo Soomaali wiil Soomaali markaysa marka aniguna waxaan sadeynay oo yaani waxaan iska jeclaastay macna yaani inaan shaqeysto dadkaas yaani macna warkooda waxba uma yeelay waxba uma arkay laakiin waan iska shaqeystaa waayo maanta aniga qofaan dhiciyahay mala xoogaygan cunahay alxamdulillah waan shaqeysanahay wallahi alxamdulillah waxaan jeclaastay macna yaani shaqadan aan wada alxamdulillah waa shaqo fiican laakiin waxaan jeclahay inaan macna yaani shaqadan aan shaqo kale ka abuurtaan jeclaan lahayn insha Allah saasan rajaynahay waayo adduunkan wiliga hal meel lagu meekaaday marka inaan macna yaani kor u sii kacay aan iska jeclaan lahayn insha Allah wallahi horta ani waxaan ugu baaqi karaa horta ani shaqadan waa ka shaqeynayaa xumaantiisa fiicnaantiisa waa kala arkay laakiin aniga dhalinyarada waxaan ku dhiirigelin lahayn macna aan u sheegay horta shaqo ceeb mala shaqo waa shaqo ninkan dukaan furtay lacag u raadinaya anigana lacag aan raadinayaa different asagu waa shaqeynaya aniguna waa shaqeynaya asagu waxa way macaamiil u sugaya anigana macaamiil aan sugaya muhiimadu waxa way qarash nin walba inuu lacag helo muhiimada taas marka aniga shaqadan waxaan arkay macna yaani qof haduu shaqo ii qorso lacag ima siinaya meeshana lacag aan ka helaa xaqna lacag aan ka helaa tanna waxay ku fiican shaqadan aniga haduu waxaan ku sii jeclaaday wax kale maaha waxa way waa self employment waa maanta shaqo waqtigan rawaan furi karaa waqtigan rawaan xiri karaa waxa way waa shaqo macna yaani self employment oo macna yaani aan lagu xukumeyn markaysa waxaana fiican aan ku arkay horta waxa adiga aad leedahay markaad waxa daleedahay wax yar ahaata wax walba